Assalaamu calaykum wataxanaheeni dambi baare aynu maalintan oo kale kaga hadli jirnay dambiyada dilalka ah ee ka dhaca daafaha dunida anigu hawlaalkan Cabdimajiid ku soo dhawow caadadeena maanta fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir like-na saar mahadsan It's incredible. Sacad Iskandar Cabdi waxa uu ku dhashay dalka Masar waxa uu ku soo koray nolol caadi ah waxaana uu ninkan la soo kacay markii uu gaaray da'da qaadka quruxuu Rabbi ku manaystay waxa uu Sacad ahaa mid kala shaqeeya walaalkii dukaan dharka lagu meedho hadii uu Sacad ka shaqeynayay goobta waxa uu noqday mid aan jeclaysan Sacad si joogista goobtan ama meesha waana uu iskaga tagay Sacad goobtii uu ka shaqeyn jiray inta kadib waxay isbarteen Sacad gabadh aad u hanti badnayd carmal ahayd isbarasho dheer kadib way jeclaatay gabadhii Sacad sababtoo ah waxa ahaa wiil uu Rabbi ugu dagay qurux hadii ay galgacayl u qaaday gabadhiina Sacad waa uu la fogaaday kalgacaylka ama muhibbada ay u qabtay ay gaadhay ku aaminto hantideeda una sheegtay meesha ay ku jirtay markii uu gacanta ku dhigay ninkii Sacad ahaa hantidii gabadhan waa uu dilay oo uu ka takhalusay markii uu galaaftay naftan gabadhan waa uu ka baxay magaaladii waxaana uu tagay magaalada Iskandariya ee dalka Masar meeshaas uu ka furtay dukaan ay shaqadiisu tahay iibinta cudbiga dharka laga sameeyo meeshaas ama dukaankaas oo u noqday Sacad meesha ugu badan uu ku geysan jiray dilalka uu ku kaco waxaana uu ahaa ninkan mid ku soo jiidan jiray dumarka ruuxdiisa oo u sahaleysay dumar aad u tiro badan soo dhacay dabinka dilaagan waxaana la yaab ku noqotay askartii magaalada Iskandariya oo ku noolaa dilaagani soo gaari jirtay fariimo ribootyo walba ribootyadaas oo ah baytaano ay qoysas weysan yihiin lahoodii arrinkaas oo weerariyay askartii Iskandariya waxaana ka dhex bilaabantay gobolkaas cabsiyo ka dhana hablaha aadka u tirada badan ee la weysan yahay waxay iskuraanba maalmuhu sanadkii 1948 waxa uu bartay Sacad gabadh ugu magacaabi jiray Faadima isagoo maalin walba u iman jiray gabadhan maadaama ay ahayd mid aad khatar ugu ah ama wax badan ka taqaanay dhankaas cunto karinta heer ay jaarka Faadima weydiiyeen ninkan maalin walba u imanaya iyaduna ama Faadimana ismaba ay dhibina waxay ku qanacay jaarkeedii inuu yahay walaal inta kadib maalmaha kamid ah sidii caadada ahayd dilaagani waxa uu weydiiyay Faadima jaarkeeda iyo habnololoodkooda isagoo ka dhex raadinaya inuu ku jiro qof hanti haysta uu nafta dhaafiyo si uu u dhaco hantida qofkaas hadii ay Faadimana ugu xal warantay jaarkeeda iyo habsami socodka noloshooda waxay u sheegtay Faadimo inay ku jirto jaarkeeda islaan aad u hanti badan oo lagu magacaabi jiray Bamba waxayna u sii raacisay inay tahay islaan da'a inta badanna ku soo hadha amaba joogta guriga kaligeed waxaana uu gudagalay ninkii Sacad ahaa amaba dilaagi waarsi uu ku ugaadhsanayo islaantan oo dilayo si uu uga dhaco lacag ama wixii kale ee guriga dhex yaala ee ugu tago waxa uu isku soo beegay ninkii Sacad ahaa xilli kamid ah xilliyadii ay ku soo hari jirtay islaantii guriga waana uu ku soo garaacay albaabkii guriga hadii ay ka furtay Bamba albaabkii isla markiiba waxa uu ku dhuftay oo uu ku soo talagalay ayaa uu kaga dhuftay madaxa Bamba arrinkaas oo sababay inay aad u dhawaaqdo Bamba xanuunka dartiis haddana waa uu ku celiyay birtii oo uu ku dhuftay waana ay dhimatay balse qayladii iyo dhawaaqii markii hore ay bixisay Bamba ee waxa maqashay gabadh kamid ahayd jaarkeeda isla markaana waxay soo aaday ninkii guriga Bamba waxayna garaacday albaabkii waxaana ka furay Sacad ama dilaagi hadii ay weydiisana Sacad qayladii iyo dhawaaqii aadka u sareysay ka soo baxay guriga waxa uu ugu jawaabay Sacad Bamba waa ay tukanaysaa hadii aad doonayso soo dhaaf guriga oo soo gal inta kadib hadii ay gabadhii jaarka ahayn Bamba soo gaadhay guriga amaba soo gashay waxay la kulantay arrin naxdin iyo fajac ku abuuray waxay gabadha aragtay islaantii Bamba oo dhulka qulqulaya dhiigeedii iyadoo nafbaxday amaba dhimatay inta kadib soo jeedsiga ay istiri Sacad eegna waxay la kulantay isla birtii oo uu ninkii dilaagahay madax kaga dhuftay isla markiiba way dhacday gabadhii oo meer daboolantay ninkii dilaagahayna waxa uu si dhimasho leh uga baxay gurigii sidii nin aan waxba geysan kadib waxa gurigii soo gaadhay intaas kadib waxa gurigii Bamba soo gaadhay mid kamid ah wiilashii ay dhashay hadii uu ridii albaabka furayna waxa uu la kulmay hooyadii oo dhulka taala iyo gabadhii ay jaarka ahaayeen oo iyadana dhulka jiifta waxa uu wiilkii la hadlay oo wargeliyay askartii una sheegay xaalka guriga balse Allah ayaa wax dilay nasiib wanaag waxaanay nafti ka bixin gabadhii ay jaarka ahaayeen Bamba oo aan dhiman kadib waxa loola cararay gabadhii dhakhtarkii markii ay soo caafimaadayna waxa la weydiiyay ruuxii sidan ku sameeyay waxayna u tilmaantay booliskii inuu yahay Faadimo walaalkeed waxayna sidaas u tiri sababtoo ah Faadimo ayaa mar hore jaarkeedii ku tiri waa walaalkay ninkani waxayna askartii soo qabatay Faadimo walaalkeedii dhabta ahaa
baadhitaan dheer kadib waa la iska sii daayey waxayna la gudagalay soo qabashada Sacad oo ahaa silaaga dhabta ah wayna soo qabatay askartii Sacad oo ay gacanta ku soo dhigtay balse waxa uu ninkani qabsaday ama Sacad qabsaday lawyer ama garsoore si uu ugu doodo intaa kadib markii ay booliska ku waayay cadeymo ninkan waa iska sii daayeen maalmo yar kadib sii deyntiisii ninkii Sacad ahaana waa uu ka tagay magaaladii waxa uuna meel kale ka furtay magaalo kale oo u dhow Iskandariya ka furtay isla dukaankii haddii ay iskuraan ayaamuhuna waxa uu saaciyay nin ka mid ahaa hantiilayaashii ku noolaa magaalada xilligaas inuu ka soo iibiyo cudbiyada dharka laga dhigo waxa uuna la ballamay maalintiisa la gaadhay maalintii ninkii Sacad ahaa waxa uu yimid ninkii markii uu cabaar la joogayna waxa uu Sacad ku dhuftay birtii oo madaxa ka qabadsiiyay amaba kaga dhuftay arrinkaas oo ninkan ku kalifay inuu aad u dhawaaqo oo qayliyo qayladiisi maqlay in ka ag dhawaa goobtaas haddii uu soo dhawaadayna waxa uu sheeda ka arkay falkii foosha xumay ee ku dhaqaaqay Sacad isla markiiba waxa uu ninkii la wadaagay arrinkii askartii haddii ay soo gaadheen askartii goobtii waxay qabteen Sacad Iskandar waxayna baadhitaano ku sameeyeen goobtii waxayna ka heleen qabriyo aad u tiro badan ay ku jiraan dad dumar u badana ugu dambeyntii 15 February sanadkii 1953 waxaa lagu xukumay Sacad Iskandar xukun dil ah kadib markii ay ku cadaatay dilalkaas inuu geystay xukunka dilka ah oo ahaa in la daldalo ilaa ay naftu ka baxayso muuqaalkana maanta taas ku eegyahay intaan ku kulmayna muuqaalka waxay ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo